وياه عاد بماتسنين فنانين تنا كوحدة ليوبان مناسبة إنه ولي ويسيس عنيسا odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada oo munaasabadan ka hadlaya bogaadiya guulaha ciidamada Liverpool ku soo hooyeen waxayna ku dhiirigeliyeen halkan halka ka sii wadaan waxaan jeclahay hadda inaan masraxa ku soo dhaweeyo wasiirada arrimaha haweenka dhalinyarada iyo carruurta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Marwo Raxmaan Maxamuud Haybe mudane madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya عبد محمود عمر لاترال جنرال أبراها والماليان عيدن كونفرتا بري مسؤولين تا دولة ديغان كصومالي دا إثيوبيا عيدن كغاركا نيو هايل يا عيدن كفدرال إثيوبيا دالني يرادا odayaasha garaadada suldaamada culimaadiinka dhalinyarada iyo haweenka gaar ahaan gobolkan goday maanta munaasabadan qaaliga ah lagu munaasabay runtii maanta waa farxad ballaaran oo aniga naftigayga waxaan ka yaabay inaan farxad la hadli kari waayo ama haddaan wax isyar jirjirsiiyo waxaad u qaadanaysaan inaan aad iyo aad u faraxsanahay sababtoo tahay munaasabadan maanta ee guusha caanka ah ee ciidanka gaarka ah ay ka soo hoyiyeen dalka iyo dibaddaba sida dawladda dariskeena run ahaan waa guul aad iyo aad loogu farxo farxad ballaaran ayay leedahay waa taariikh lama ilaawaan ah oo runtii taariikhdu way qorantaa markay qorantana dib uma soo noqoto marka waxaan leeyahay waa taariikh qorantay baan leeyahay runtii ciidankan gaarka ah oo markii hore siday ku yimaadeen la og yahay si badan ayaa looga soo sheekeeyay runtii siyaabahay ku yimaadeen laakiin sida ugu sii inkaaran waxay ahayd ubbo dhibaatadii ay waddanka ka samaysay baroortii shacabku ay barooranayeen iyo ilmadii ayay runtii ciidankanu ku aasaasmay isagoo qaybo badan uu ku aasaasmay ay jireen haddana waxaa ugu sii muhiimsan ciidan baroor ka aasaasmay ayuu ciidankanu ahaa markaa ciidanku baroortii ma u qalmay mise uma qalmin wuu qalmay guulo la taaban karo ayuu dalkana ka keenay dibaddana ka keenay kana keeni doonaa insha allah oo waan filaynaa inay ka keeni doonaan runtii ciidamada federaalka ah waa halyeeyo waa geesi adduunka iyo afrikabana magac gaara ayay ka leeyihiin sababtoo tahay dalka Itoobiya sharaf buu leeyahay sharafta dalka Itoobiya leeyahayna ciidamada federaalka ayaa keenay dhab ahaan markan hadda aan dib ugu soo noqdo deegaankeenana iyo dibaddaba new booliska oo federaalku aabba u yihiin iyaga laga bartay magaca aabbe marka iyaga maadaama laga bartay iyagana ciidamada federaalka ayaa aabba u ah oo dhaqankoodii ayay bareen iyo tababarkoodii ay ku soo daysteen kuwa ay kaasa iyaguna waa haliyeeyo lagu diirsan karo geesiyaal ah ciidanka gaarka ah waana ni jecel lahay waana ni sii jeclaan doonaa waana garab taaganahay mishinadiina iyo hawlihiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayay mahadsan tahay Marwo Raxma waxaan haatan masraxa ku soo dhaweynayaa garaad Cabdimaalig oo ku hadlaya magaca odayaasha deegaanka sacab ku soo dhaweeya sacab Liupolis tarik sarra lahagar lawaganu Liupolis tarik sarra lahagar lawaganu
liyu boolis taariikh sarra la hageer lawanow una tim taariikh sarra una tim taariikh sarra una tim taariikh sarra waxa weeye liyu booliska geesiyada liyu boolisku taariikh bay sameeyeen run ahaan taariikh bay sameeyeen waxa weeye maanta dadkii ugu horreeyay hadalkii waan kale ani hees bay la gelaysaa maanta waxa weeye geesiyada liyu boolis taariikh bay sameeyeen taariikhdaasna waa cadeed oo kale wax la qari karin maaha madaxweyne maxamuud cabdi maxamuud cumar generaal abraha walde maryam madaxda kale kililka ciidamada geesiyada liyu booliska odayaasha dhalinyarada iyo cid kastoo sharaf loo halkan joogtaba marka hore waan salaamayaa salaan kadib waxa weeye maanta maalin taariikhi weeye maalin liyu booliskeenna hanu ku xusayno weeye liyu boolisku waxa weeye geesiyadii kililka xoreeyey weeye haddii aan taariikhda dib ugu noqdo inkastoo dee waxaan odhan lahaaba la yidhi oo badhna hoboladiibaa yidhi badhna madaxdiiguba ayaa tidhi badhna waxaa timid faa'isaa tidhi intii hadalkii odhan lahaaba waa la yidhi waxa weeye muxuu liyugu ama dhibaatada ka horreysay dharaartii liyuga kililkeenna maalmihii liyu in la sameeyo maskaxda hay maaragtay madaxdeennu ay geliyeen dhibaatooyinkii ku meerarsanaa haddaynu dib ugu noqonno kililkeennu waxa weeye ama deegaankeennu wuxuu ahaa etoobiya waxaa looga yaqaanay deegaankii dib wadhahalaqar ayaa looga yaqaanay deegaan aan muxuu ahaa waxa weeye wax qiimo lahayn ayaa looga yaqaanay saddex dhibaatana way haysatay nabadgelyo darro maamul xumo iyo horumar darro ayaa haystay nabadgelyo darradii iyo maamul xumadii intii kolkii la isku wada daray kililkii way ragaasay rag baa haddaba u kacay hobolladii meesha ka heesayey waxa weeye geesi muxuu derbiga dhaxanta celiyo geesi daacadaa jira waa iloobe rag baa u soo kacay adoo calaaxulaxal u fikiray oo waxa weeye dhibaatadan sidii looga bixi lahaa fikiray waxay kolkaa noqotay nin baa la yidhi saddex fallaadhood baa ku taallay mid ishay kaga taallay mid garabkay kaga taallay midna badhaday kaga taallay ninkii waxaa la yidhi war tee lagaa saaraa kolka hore wuxuu yidhi tasalka iga saara si aan u fadhiisto labadan kale sii maarta aan wakhti ugu helo layga saaro kolkaas waxaan murtidaasi waa xigmadday ku shaqeeyeen madaxdeenna kiilalka ama geesiyadeenna yacni horumarka sameeyey waa see u fikireen qodobka ugu horreeya waxay yidhahdeen war kiilalka dhibaatada ugu horreysee taalla waa nabadgelyo darro nabadgelyo haddayna jirin horumar jiri maayo maamul wanaagsanna jiri maayo fallaadha haddaba badhaday naga taalle nabadgelyo darrada ah si kiilalku u dego aynu ka saarno waxa kolkaa la sameeyey waa kuwan allah daayo ciidamadeenna holyada liyu booliska ayaa la sameeyey liyu booliskii kow horta intaan yacni intaan la samayn dhibaatada jirtay horta meel kaleba iska dhaaf jigjigoo caasimadiia ayay ubba xukuntay xaqaa'iqa kolkaynu eegno ubbaa kolkay doonto qarxin jirtay kolkay doonto waxay doonto samayn jirtay waxa loo samayn jirtay ubbaa miisaaniyadda kililka maamuli jirtay wax kaleba iska daaye ayaa maamuli jirtay waxa weeye kolkaa geesiyadii liyuugii jigjiga iska daayay kililkeennii oo dhan bay xoreeyeen kililkeennii kolkay xoreeyeen ama deegaankeenna alqushaash bay haddana ka hortageen taasina waxa weeye guul dheeraada oo aynu ku faanno ka deegaan ahaan iyo ka etoobiyaan ahaan ayay soo hooyeen waxa weeye kolkaa yacni maanta nabadgelyo buuxda ayaynu haysanaa deegaan ahaan waxaad muxuu nabadgelyada kolkaynu ka hadlayno waa al-shabaab taas saynu u tirtir lahayn si madaxweynuhuba lahaa yaan laga fadhiisan in la tirtiro taasa alqushaash waana madaxweynaha waa suuyid waa fulaynimada aabbahood weeye inaynu ku aadna tirtirno ayaa inoo taal kadib waxaan madaxweynaha yacni la saxeexaynaa haddaan afka odayaasha anoo ku hadlayaa in horumarka loo jeedsado waxa weeye hadalka hortay baa la dhameeyey waxaan leenahay guulaysta 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 waad mahadsantahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay garaad cabdimaalig oo ku hadlayay magaca odayaasha deegaanka
waxaan haatan masraxa ku soo dhaweynaya mudane cabdishakuur cusmaan oo ku hadlaya magaca dhalinyarada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya moraal ku soo dhaweeya cabdishakuur madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar taliyaha koonfur bari la tiraajanaal Abraham wada Maryam odayaasha dhalinyarada halyeeyada gaarka ciidanka liyu booliska ciidamada kale ee dalkeena Itoobiya difaaca qaranka dhammaan waxaan ugu salaamayaa hambalyo bagaan nabad ku soo gaarnay maalintan aan ku xusayno xafladda qaaliga kulay in badan ba laga soo hadlay ana waxaan ku faanay ana ku hadlay magacayga iyo magaca dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya halyeeyadana waxa dhalinyar u huray naftooda siday shacabkooda u badbaadin lahaayeen taariikh xusud mudan weeyaan markay deegaankeena horumar ka gaareen ee indhaha u shideen ubo ciidamadan geesiyaasha deegaankeena oo ka damqaday dhibaatadii lagu hayay shacabkeena waad la socotaan 5 sano ka hor deegaankeena wuxuu ahaa dhibaatadii ka jirtay caasimada wali waad la socotaan deegaanka Soomaalida Jigjiga in la isku dhaqaaqay inay dhibaatooyin badan ka jireen markii fikirkii hogaaminta fiican ee xalaasha ay u damqatay shacabkooda ayaa aasaasan ciidanka gaarka waxa laga bogsaday dhibaatadii ka jirtay turunturadii lagu hayay shacabka waxa loo dhaqaaqay horumar deegaankeena anagoo dhalinyartii waxaan ku faanaynaa inay dhalinyar yihiin dhammaan ciidanka deegaanku inuu yahay dhalinyar u damqatay deegaankeena anaguna waxaan ballan qaadaynaa hadaan dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida nahay inaan garab istaagno markastana dhalinyarada ku faano noqoto hiyo hoobahan la garab istaagno aad iyo aad ba maasantiin waan salaamay assalaamu alaykum warahmatullaah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mudane cabdishakuur cusmaan oo ku hadlayay dhalinyarada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan haatan ku soo dhaweynayaa marwo muxubbo cali waayahay marwo muxubbo waxay ku hadlaysaa magaca haweenka federaalka iyo xildhibaanada heer federaal marwo muxubbo waan ku soo dhaweynay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ka salaamayaa anigoo waxa la yiraahdaa magacayga Maxamed Cali Daawud waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo saddexda madaxweyne ku xigeen golaha Kaamaneega heer federaal iyo heer deegaanba gudoomiye gobolada gudoomiyaha degmooyinka hogaamka nabadgelyada ugaasiyada suldaamada dhammaan ciidamada noocay doonaan ba ahaadaan ama heer federaal heer deegaan ilaa iyo maleeshiyaanka ku sugan qabaleyada aad baan u salaamayaa dhammaantoodba general Abraham waxaan rabaa inaan wax yar inaga yar tuso ciidamada federaalka wixii ka hakiyay in ay ciidamadan liyu boolisku meesha ay gaadheen ay ka gaadhaan dawlad deegaankeena waxay ahayd ubo oo iska dhigaysay arxan deegaanka dadka degan iskaga dhigaysay arxan dawladda yacnaa federaalka booliskana ka dhigayay dad xunxun oo ku soo duulay dadka ooga dhigayay waayo iyaga oo raba ciidanka federaalka inay caawiyaan haweenka iyo caruurta ayay waxay ku dhigi jireen kuwani waa kuwa inagu soo duulay laakiin ciidamadan liyu boolisku far walba oo la qoro way la garanayaan waayo dhammaantan ilmaadeer ayaanu nahay waana laga guuleystay markii horumarkii iyo nabadgelyadii ay salka u dhigeen ayay u adeegsadeen inay hooyooyinka dhibaataysan ka caawiyaan waayo waxaad qabtaan duco waalid wallaahi billaahi tallaahi baan ku dhaartay dawladda bas inima ducaynin waxa inii ducaysay hooyo gaajaysan oo buul hoostii jooga oo caanaha laga cabaayay waxa inii duceeyay aabba xanuunsan oo wax daweeye waayay waxa inii duceeyay ciyaal baahan oo dhakhtarkii maalin walbaba kii loo dhisa laga duminayo ducadooda xambaarsantiin warka waan soo koobayaa anu waxaan ahay hooyo ku dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hooyo daalin baan ahay daadku qaadin baan ahay la daweeyay baan ahay la daryeelay baan ahay hooyadiin baan ahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marwo muxubba aad iyo aad ayay u mahadsan tahay run ahaantii muxubbo say sheegtay hooyooyinka deegaanku waa hooyooyin aan ka daalin in ay garab istaagaan
cid walba nabadda jecel cid walba horumarka deegaanka jecel taliyaha ciidanka difaaca qaranka ee koonfur bari dalka Itoobiya Lieutenant General Abraha Waldamariam ayaa waxa uu ciidamada liyu booliska guddoonsiiyay shahaado sharaf iyo bilad ay ugu talagaleen taliska koonfur bari dalka Itoobiya taasoo ciidanka liyu booliska ay ku mutaysteen guulaha ay ka soo hooyeen la dagaalanka ururka hargeysyada ee Al-Qushaash guusha ay ciidamadu soo hooyeen darteed ayaa ciidanka difaaca qaranka ee koonfur bari dalka Itoobiya waxa shacabka deegaanka u dhisay dugsiga waxbarasho u dhameystiran iyadoo ay ku wareejiyeen madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka waxbarashada mudane Mawlid Hayre ይከፈትና ያነቡታል ለኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስት እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አካል የሆነው የደቡብ ምስራቅ እዝ ሰራዊት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የቆየውን የሰላም እጦት ለማስወገድ ከሶማሌ ክልል መንግስት ጸጥታ ኃይልና ህዝብ በጋራ በመሆን በከፈሉት መስዋዕትነት አስተማማኝ ሰላም ተረጋግጧል። ይህ ውጤታማ ሊሆን የቻለው የክልሉ መንግስት የጸጥታ ኃይልና ህዝቡ በባለቤትነት ስለሰራ ነው። ይህንን ሁኔታ ክልሉን ወደ ቀጣይ የተረጋጋ የሰላምና ልማት የዲሞክራሲ ግንባታ አሸጋግሮታል። ስለሆነም የደቡብ ምስራቅ እዝ ሰራዊትና የክልሉ ህዝብ የክልሉ ልዩ ኃይል ኦምነግን አሊታህድን እንዲሁም የአልሸባብን ለመደምሰስ በጋራ የከፈሉት መስዋዕትነት ህያው ምስክር ሊሆን የሚችል የክልሉ መንግስት በሚሰጠን ቦታ ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል የሚያስተምር ትምህርት ቤት በመላው የደቡብ ምስራቅ እዝ ሰራዊት ስም ሰርተን ለማስረከብ የወሰን መሆኑ በደቡብ ምስራቅ እዝ አመራርና አባላት ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። ክብርና ሞገስ ለተሰዉ ሰማዕታት ጀነራል አብርሃ ወልደማርያም። sida la wada ogsoon yahay amni xumada muddada dheer ka jirta deegaanka Soomaalida Itoobiya si meesha looga saaro ciidanka qaranka qaybtiisa koonfur bari oo kaashanaya shacabka xukuumadda iyo xoogga gaarka ee deegaanka waxay abuureen nabadgelyo la isku halayn karo kadib markii ay sameeyeen nafuris badan tan waxay ku meel dhashay markay shacabka xukuumadda iyo xoogga gaarka ee deegaanku hawshan la wareegeen si laansha ku dheehan tahay waxay tan dhabaha waxa dhayn xaaladda deegaanka u gudubto xaaladda horumarka nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda sida darteed taliska koonfur bari ee ciidamada difaaca qaranku shacabka xukuumadda iyo liyu boolisku kadib markii ay ka sifeeyeen deegaanka Obbo al-Ittixaad iyo Al-Qushaash taliska koonfur bari xubnihiisa iyo mas'uuliyiintiisu waxay go'aamiyeen inay deegaanka Soomaalida ka dhisaan ayna ku wareejiyaan dawladda dugsi waxbarasho oo koowaad ilaa 8aad ah oo laga dhisay goobta ay dawladdu ugu tala gashay in laga dhiso iyadoo ay tahay mid ka soo goday xubnaha taliska iyo mas'uuliyiintooda oo dhan sharaf iyo qadarin warta waxa iska leh halgamayaashii shahiiday Lieutenant General Abraha Waldamariam taliyaha taliska koonfur bari ee ciidanka qaranka Yo la mate ganki, anali gugu dule shi.
دائما يوماتي ذي شفت شيء والدكود هذا دوكسي وسامي حناني يودريالي إنو تذكر نباتكو سيفضو دلالك أجاكو قرني دائما يوماتي ذي شفت شيء والدكود هذا دوكسي وسامي حناني يودريالي إنو تذكر نباتكو سيفضو دلالك أجاكو قرني دومانا يقع حد يطلب شجاع عادي روحا جوغا وباهين هذا كوتاقي دقنك دور سومي قاري هذا ديب سؤال وصي هذا دعنا وهوكاشا اسقارسين دور لحادي dalkiyo dibad ruuxa jooga warbaahin ada ku deeqay dhaqankii door soo migaadhay adadiibu soo aloosay horumarka lagu doorsadiyo dowlad qaran iyo midnimo
sano